أوقافته أنت يا أوقافته كل جيل واحد يقول سلام يا سلام الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن runtii muhiimadda ugu weyn anagu aan ilowsanayn muhiimadda ugu weyn ay qaranka u leedahay inaan xanuunkani faafin waxaa dawladdu go'aansatay in la furo xafiis ka shaqaynaya oo ah oo uu hogaaminayo xogayaha guud oo noqonaya xafiiska shaqo maalmeedka ka hortagga cudurka coronavirus qabta madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiiraduna ay u noqon doonaan mustambeed ama ay hagi doonaan ummadda reer somaliland waxay la tahay inay hadda qiyaasi karto sida xukuumaddu ay ugu diyaargarowday in ay dadka ku wacyigeliso inaan xanuunkan innagoo ilaahay la kaashanaynaa inaynu isku dayno inaanu faafin oo uusan dad badan uusan galaafan ummadda reer somaliland waxaan leenahay nala shaqeeya oo ka shaqeeya naftiinna oo taayada ka shaqeeya oo tiinna ka shaqeeya oo tacaruurtiinna ka shaqeeya oo qof kasta oo innagayna ka mid ah isku dayo in uu qaato amaawiirta ka soo baxaya dhakhaatiirta guddiyada wadaadada dadka aqoon-yahanka iyo dadka wax garanaya xanuunkan sida looga hortago taasi waxay inoo sahlaysaa inaan xanuunkan isku dayno inaanu xakamayno oo uusan ooda goosan xanuunkani somaliland wuu ku jiraa kuwa horoo positifana sidii wasaaraddu sheegtay waa la helay haddana ugu yaraan 20 qof ayaa maqan risalkoodii oo aanu filaynaa in la keeno waxaa caddayn doonaa marka ay soo gaadho wasaaradda warfaafinta wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirteeda ayaa caddayn doona laakiin waxaanu sheegi karaa inay maqan yihiin arrintaas waxaan rabnaa dhab inaynu u qaadanno arrintan si dhaba oo aynu ka dayno dhayalsiga iyo sida marka dawladdu amaawiir bixiso sida aan loogu dheganuglayn haddaan tusaale yaraysiiyo dadka soomaalidu oo ay ka mid tahay ummadda reer somaliland waxaa lagu qiyaasaa hadda inay yihiin yurub dadka ugu dhimashada badan hadday tahay norway hadday tahay sweden hadday tahay ingiriiska waxaa lagu qiyaasaa dadka ugu dhimashada badan waana dadka tiro ahaan ugu yar ee ku nool maxaa keenaya arrintaa waxaa keenaya dadka oo aan dhegaysan fariinta dhakhaatiirta oo iska dhaga tira iyo waxa dawladuhu u sheegaya tiraba 3 jeer baan dad official oo waaweyn oo yuruba ka dhagaystay oo dhaleecaynaya ama maagaya dadka reer somaliland ama dadka af soomaaliga ku hadlo taasi waxay keentay inay hoggaamiyaan dhimashada sweden oo kale taliyaha guud ee ciidanka biliiska norway baan dhagaysanayay oo khaati ka jooga dadka soomaalida sida loo maamulayo yes haddana waxaan leenahay xukuumad ahaan iyo dawladdii reer somaliland haddaynu nahay aynu iska dayno inaynan dhegaysan amaawiirta ka soo baxaya wasaaradda caafimaadka iyo dadka aqoon-yahanada iyo dawladda iyo guddiga intaba oo aynu garanno danaheena oo aynu fahanno in cudurkani dilaayahay qofku awal uu xanuunsan jiro waxa laga yaabaa reerka in qof ka xanuunsan jiro xanuunkaasi uu isaga dee faamiliga intiisa kale la tacaalaan laakiin waxa weeye haddaad faamiligii ula timaado 10kii guriga kula joogay 10 oo kula jiibsanaya caruuri ku jirto cid waliba ku jirto dad jiibsan ku jiro saadaradeedu waa inaynu digtoonideenna meel fogaynaa waxaan halkan tacsi u marinayaa dhammaan dadyowga reer somaliland ee ku dhintay
xanuunkan ee u badan qurbaha iyagana waxaanu leenahay war dalka aad joogtaan sida fariimihiisa iyo mas-uuliyiintiisu waxa ay idiin sheegayaan dee aqbala oo dee cabashada caalamku idinka muujinayo dee u dhega nuglaada waana sababta keentay in dad badani hoggaamiyaan ama ay dhimasho badani dadkaa ku dhacdo runtii aad iyo aad baan uga xunnahay ama uga naxaynaa dadka reer somalilan ee dadkan u ahaa meesha ay wax ka filayeen ama ilaha dhaqaalaha u ahaa inay dhimashadoodu badnaato ilaahayna waxaanu ka baryaynaa wixii uu xanuunsanna ilaahay ka caafiyo ilaahay faafintiisana ina ka joojiyo dhammaan qof kasta oo innaga ina ka midina uu dee mas-uuliyaddiisa qaato waxaa la ogaaday yurub iyo north america iyo dowladaha asia ee uu ku dhaco inay waxay ku kala horumareen ay tahay amaawiirta iyo disciplinka iyo kala dambaynta iyo amar qaadashada hadda china wuxuu iclaamiyey dhammaan inay hawlihii ku soo wada noqdaan gobolladii ugu daraa iyo provincegii iyo regionskii ugu daraa inay si caadiya xaaladdu ku soo noqotay ayuu iclaamiyey dhimashadiisuna waa aad bay u yartay marka loo eego reer galbeedka waana meel ay ku nooshahay 1 bilyan iyo 400 milyan waa quarter of the world ama rubuc caalamka dadka ku nool baa China ku nool rubuc marka caalamka 4 meelood loo qaybiyo meel baa China ku nool aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan isleenahay xafiiskani wuxuu idiin noqon doonaa ama inoo noqon doonaa mid fuliya danaha aynu u aasaasnay oo ah in uu shaqo maalmeed xawlila u qabto ummadda reer somalilan oo aynu soo ururino xafiisyadii faraha badnaa ee wasaaraduhu iyo guddiyadu iyo ay hayeen si meel looga wada hoggaamiyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan leenahay qof kasta oo muwaadina oo reer somalilan waa ku celinaynaa in uu qayb ka qaato mas-uuliyaddan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu